Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada xubin cusub oo aan ugu magac darnay taariikh nololeedka xidigaha oo aanu ku soo qaadan doono taariikh nololeedka iyo weliba xaqiiqooyin dheeraad oo aanad ka ogeyn xidigaha kubadda cagta. xubinteennan waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa xidigii hore ee khadka dhexe ee kooxda Barcelona iyo xulka Isbaanishka ee Xavi Hernandez. Xavi Hernandez Cruz waxa uu bishii January 25-keedii sanadkii 1980 ku dhashay magaalada Terrassa ee gobolka Catalonia ee waddanka Spain. waxa uu dhashay hooyo lagu magacaabo Maria Mercedes Cruz iyo aabihii Joaquim Hernandez. aabihii waa ciyaaryahan hore oo u soo dheelay kooxo fara badan oo ay ka mid tahay kooxda Barcelona. ilaa bilowgii yaraantiisii waxa uu Xavi ahaa mid aad u jecel ciyaaridda kubadda cagta. labadiisa waalid ayaana ku caawin jiray inuu sameeyo go'aanada saxda ah. sidoo kale waxaa yaraantiisii uu jeclaa inuu noqdo sida kubad sameeyihii kooxda Barcelona ee Pep Guardiola, kaas oo mar dambe noqday tababarihiisa. Xavi Hernandez waxa uu ku biiray akaademiyada Barcelona ee La Masia markay da'diisu ahayd 11 sano, waxaanu si dhaqso leh ugu gudbay kooxda koowaad markii uu jiray 18 sano. markii uu 19 sano jiray waxa uu ku dhowaaday inuu ku biiro kooxda AC Milan. aabihiis ayaana u ogolaaday inuu ku biiro, hase yeeshee hooyadii ayaa diiday oo tidhi in Xavi ka tago kooxda Barcelona waxaan ka xigaa inaynu kala tagno. Xavi ayaana fikraddaas iska ilaaway siina waday waayihiisa Barcelona. sidoo kale waxa uu noqday mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee kooxda. Xavi ayaana ku dhammaystay xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee kooxda koowaad 26 ciyaarood oo uu saftay, isagoo sidoo kale kula guulaystay horyaalka Spain ee La Liga. xilli ciyaareedkii 1999-2000 waxa uu noqday sameeyaha koowaad ee kooxda kadib dhaawac ku yimid Pep Guardiola. intii u dhaxaysay sanadihii 2001 ilaa 2003 kooxda Barca ayaa la daalaadhacaysay dhibaatooyin dhaqaale, hase yeeshee kooxda ayaa awooday inay isu keento jiil dahabi oo ay ka mid yihiin Andres Iniesta, Ronaldinho, Deco iyo Carlos Puyol. Xavi ayaana intii u dhaxaysay labada xilli ciyaareed dhaliyay 7 gool, caawiyeyna 20 kale. sanadkii 2005 Xavi ayaana sii waday horumarkiisa, waxaana sanadkii 2005 loo magacaabay ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee horyaalka Isbaanishka. sanadkii 2006 waxa uu Xavi kula guulaystay kooxdiisa Barcelona koobkii ugu horreeyay ee Champions League kadib markii ay ciyaartii finalka ahayd ee ka dhacday magaalada Paris ee dalka Faransiiska kaga adkaadeen kooxda Arsenal. kadib markii uu xulkiisa ku hogaamiyay guushii qaramada Yurub ee 2008 waxaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu fiicnaa tartanka. isla xagaagaas waxa uu laacibku bilaabay inuu wada hadal la galo kooxda Bayern Munich, balse tababaraha cusub ee kooxda Pep Guardiola ayaa ku qanciyay inuu aad muhiim ugu yahay kooxda, sidaa daraaddeedna uu ciyaaryahanku uga laabtay go'aankiisii. dhammaadkii xilli ciyaareedkaasna waxa uu kooxdiisa kula guulaystay saddexleydii taariikhiga ahayd. bishii Juun 9-keedii sanadkii 2010 waxa uu ciyaaryahanku saxeexay heshiis cusub oo 4 sano ah. isla xagaagii sanadkaas waxa uu laacibku kula guulaystay xulkiisa Isbaanishka koobkii adduunka ee ugu horreeyay ee uu qaado xulka Isbaanishku. xilli ciyaareedkii xigay ee 2010-2011 waxa uu sidoo kale kooxda kula guulaystay horyaalka La Ligaha iyo weliba koobka horyaalka kooxaha Yurub. sanadkii 2012 ayuu markii labaad ee xidhiidha kula guulaystay xulkiisa koobka qaramada Yurub. sanadkii 2014 ayuu iclaamiyay inuu iskaga fadhiistay xulkiisa. Xavi ayaa sanadkii 2014 mar kale damcay inuu kooxda iskaga tago, balse markan tababare Luis Enrique ayaa ku qanciyay inuu kooxda hal sano kale sii joogo. ciyaareedkii xigay ee 2014-2015 waxa uu noqday kabtanka koowaad ee kooxda kadib markii uu fadhiistay Carlos Puyol. kadib kula guulaysigiisii kooxda saddexleydii labaad sanadkii 2015 waxa ciyaaryahanka ugu dambeyntii si rasmi ah u xaqiijiyay inuu kooxda ka tagayo, isagoona u saftay 767 ciyaarood kulana guulaystay 25 koob oo kala duwan. mar wax laga weydiiyay aabihii sababta wiilkiisu kooxda uga tagayo ayaa sheegay in aan wiilkiisu lacag doonis uga tagayn kooxda, hase yeeshee aanu labadii sano ee ugu dambeysay ku raaxaysan kubadda cagta. sidoo kale waxa uu sheegay in duruufo adag ay ka jirtay qolka labiska ee kooxda Barcelona. ciyaartooyga laftirkiisa ayaa warbaahinta u sheegay inuu doonayay inuu kooxda ka tago xilliga ugu habboon. 21 May ee sanadkaasi ayuu sheegay inuu ku biirayo kooxda Al Sadd ee ka dhisan waddanka Qatar. haddaynu dib u eegno dhanka qoyskiisa, Xavi waxa uu ka soo jeedaa qoys ballaaran oo hodan ah, waxaana la dhashay 5 walaalo ah, 4 wiil oo lagu kala magacaabo Benny, Alex, Diana, Laura iyo Oscar, iyo hal gabadh oo lagu magacaabo Ariadna. Xavi waxa uu sanadkii 2013 la aqal galay gabadh lagu magacaabo Nuria Cuniera. lamaanahan ayaana leh gabadh lagu magacaabo Asia oo dhalatay bishii January 3 sanadkii 2016. Xavi Hernandez waxaa si aad loogu xasuusan doonaa fiiradiisii dheerayd, baaskiisii saxda ahaa iyo weliba kubad kontaroolidiisii caalamiga ahayd, taasoo awood u siin jirtay inuu maamulo qaabka ciyaartu u socoto. sidoo kale waxaa lagu xasuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka kula guulaystay koobabka ugu badan kooxda Barcelona, sidoo kalena ugu safashada badan.